waxaa soo taraya wararka laga helaya khasaaraha ka dhashay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska sayidka ee magaalada Muqdisho. Bar control oo lagu hubiyo gaadiidka ayaa waxaa ku qarxay gaari lagu soo xiray waxyaabaha qarxa oo ku jiray safka gawaaridii la baarayay. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku geeriyoodeen. Mas'uuliyiinta qaraxaasi ku dhimatay waxaa ka mid ah agaasimihii maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda haweenka Bila Ismaaciil Diiriye iyo sidoo kale Cabdirashiid Sharar oo ka mid ah taliyaasha xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka. Dadka qaraxaasi ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa la dhigay isbitaalada magaalada Muqdisho. afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Carab oo goobta marka uu qaraxa dhacay kadib soo gaaray ayaa waxa uu sheegay in qaraxaasi uu ahaa mid lagu soo xiray gaari uu watay qof kadibna halkaasi uu ku qarxay. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. runtii maanta abaaro 9 iyo daqiiqado subaxnimo halkan aanu joogno ee ah jagboontiga laga ilaaliya jagboontigan kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah jagboontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo ay halkan ay joogeen gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd marka xilli ay dadyooga kala duwan ee shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda. runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira. inta dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacana waxaan u rajaynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan. tirada inta dhimatay hadda la haayo waa ilaa 3 qofood, inta dhaawacantayna waa ilaa 6 qofood. dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka. goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota. waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo. runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka, inay beegsadaan shacabka. waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waxay ahayn dad shacab ah. runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeenin ruux shacaba iyo qof kale intaba. marka waxaan rajaynaynaa in shacabka ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee banaystay caadaystay inay shacabka dhibaataysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan. maalin walba hooyo Soomaaliyeed ka oysiiyaan qof kasta oo Soomaali ahna waxa aanu ku goobaabinaynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo. runtii gaariga ilaa hadda qofka lahaa lama cadeynin, baaritaan ayaa socda. sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dhajiyana waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta wax ka dhacay dhulkii waxba muusan gaarin. gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxira waxa caado ah in markii uu qarxo dhulka wax gaaro saameyntiisuna intaan uu ka sii bilaabo. marka saameyntu uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeedin waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen. laamaha ammaankan waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay. aad ma jirto ilaa khasaaro rasmi oo hadda la sheegay. waa idin sheegay khasaaraha inta dhimatay waa 3 qofood, inta dhaawacana waa ilaa 6 qofood. magaalada Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe waxaa ku soo badanayay falalka lidiga ku ah dhinaca amniga kuwaasi oo ka dhacaya mararka qaar magaalada. waxaana qaraxii ugu dambeeyay 28 bishii tagtay ee December oo ka dhacay isgoyska Ex Control Afgooye ee magaalada Muqdisho.